kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel walba dunida ka joogtaan si walba ay noo daawanaysaan ku soo dhawaada falaqeynta toddobaadkani waxaa falaqeynta igala qayb qaadanaya Huud Cadaabe huudow aan ku bilaabnay barnaamijka falaqeynta bandhiga ciyaaryahanka Paul Pogba xulkiisa qaranka warbaahinada qaar waxa ay sheegayaan in Paul Pogba kooxdiisa iyo markuu u ciyaarayo xulka qaranka jirto kala duwanaansho marka maxay tahay sababta Cabdiraxiin adi iyo saaxiibada waa salaama page-ka YouTube-ka labadaba ku xiran assalaamu calaykum waa dhawahay markii aan ka hadalno arinta Paul Pogba laba qayb aan kala qasaareena marka laga hadlayo xulka qaranka Faransa iyo marka laga hadlayo Manchester United waxay ciyaaraan laba system oo kala duwan ciyaaraan tusaale marka Manchester Manchester waxay ciyaartaa laba saay ciyaartaa Manchester ma haysato saay rasmi ah ma haysato oo marka Paul Pogba oo yani kaaba sida Faransa oo kale waxay haysataa saay rasmi ah marka dhibaatada ugu weyn Paul Pogba waxay Manchester dhibka ugu weyn wuxuu ka haystaa inuu Benoni raacdo iyo inuu Benoni dhiso waa markuu Manchester joogo inuu labadaas hool isku qabtana Pogba xoogaa uma sahlano Pogba inuu Benoni sharxo inuu kubad qaabay naqdo inuu centralka ka ciyaaro midfielderka oo yani otaha lambarka otaha inuu ka ciyaaro amba inuu lambarka diishaha ka ciyaaro oo xuriyad oo haysto laakiin marka oo Manchester oo dheelaayo waxa saaran pressure culus saaran taasoo keenaysa dhaxda ku dhax jiro Manchester ma haysato say rasmi ah say rasmi waxa ciyaaray namaanid maati jadilay maati nidaa ka dad maati McTominay ma say rasmi ah oo maanta oo Pogba isku filan oo booska suitable ah oo daafacada ilaalinayo laakiin markuu xulka Faransa oo joogo wuxuu haystaa Nicolas Kento haystaa wuxuu kaloo haystaa Rabiot oo haystaa asiga marka waa free hool ciyaara marka bandhigiisu wax banaanka soo bixinayo inuu yani bandhig qurux badan oo dheelo marka oo Faransa oo dheelayo sidoo kale wuxuu haystaa Christian Toulouse oo yani oo kubad burburiye ah dheeli karo Nicolas Kento oo kubad burburiye natural ah iyo Rabiot oo kubad burburiye ah iyo yani kubad sharxa marka asiga culays ma saarno inuu kubada ku xaragoodo waxa uu sababayo ciyaartooydaas inta badan Manchester United markuu u ciyaarayo macalinka wuxuu garoonka la soo geliyaa Fred iyo Scott McTominay badana markii uu Fred la ciyaarayo markuu McTominay la ciyaarayo taas tabaab wanaagsan markii Fred iyo McTominay labadaba markii oo midba markuu goon u ciyaarayo tusaale mid wuxuu ku fiican yahay laakiin McTominay wuxuu kaga fiican yahay Fred daafacidan oo ilaalina kubadiina wuu hor joogsanaa halka cilado oo Scott heesata waxay tahay asigoo booska sayga ah oo aan jiidis kubada loogu talagelin heesto inuu sharxo inuu jaraafay loogu talagalay oo wuxuu rabaa inuu jiido sida nin oo diyeesho ah amba nin oo taa kubada ku xaragoodo marka Pogba wuxuu ku noqonay inuu yani kubadna difaaco kubadna dhiso roolkaas waxaan u sii dheer Pogba cadaadiska wariyaasha sida English media waxa way aad wax u buubunaa ciyaartooydooda ma arkaysid maalinka Grealish ka jiifto amba Mason ka jiifto amba ciyaaraha British ka jiifto lagama hadlo laakiin Paul Pogba maalinka yani ka jiifto amba dhibaato oo yani oo tabanayo amba culays Quraan pressure ku sii saarayaan pressure-ka waxay u sii saarayaan lacagta laga soo bixiyay ma arkaysid ay ku ciyaaryahanada qaaliga Ingiriiska oo pressure saarayaan ma arkaysid marka dhibaatadaas oo kulansaday asoo lacag qaali ah Manchester ugu fadhiyo asoo haysan natural defensive midfielder haysan oo Manchester roolka uu dheelaayeen oo labadaas rool isku dheelaayo iyo saxaafadii u sii dheer intaas Pogba marka cadaadiska Manchester laakiin Faransa markuu joogo xor yahay oo waxaasoo dhan yani Nicolas Kento ka difaacayo kubadaha yani dhaxbixiska oo kala soo jaraayo asaa kubad soo raacanayo Pogba markuu wuxuu ilaa kubad oo ku xarako karo oo ku gaarsiin karo wariyahanada kubada qurxan Pogba marka kubad inuu qurux badan aad u dheelaa ratid waa inaa haysataa saay sida Nicolas Kento ah marka cilada ugu weyn ee Manchester United ay ka haysato waa dhanka lambarka lixaad warbaahinada shalay ilaa iyo maanta waxay qorayaan in Paul Pogba Manchester United ay ku biicin doonto adduun gaar 50 milyan aan dhahay taasoo sababay in Manchester United uu qandaraaskiisa uu ka dhamaan rabo qaarna way beeninayaan oo waxay sheegayaan in Manchester United
ay damacsan tahay in ay ku bedelato xidiga Cristiano Ronaldo ee Juventus maadaama ay Juventus in badan ay doonaysay xidigani sidoo kale United waxay aad u baahi qabtay Cristiano Ronaldo waayihiisii Real Madrid sidoo kale Juventus xitaa sidoo kale marka arintaasi ma dhici kartaa iyase faa'iido u tahay isbedelashada oo labada xidig kooxahan kala qaadanayaan xinkay laba kala qaadayna Paul mar laga hadlaayo faa'iido Manchester ma ku qabtaa inay Ronaldo ku bedelato iyo yaa faa'iido ugu fiican qabo horta faa'iido ugu weyn waxa qabtay UEFA qadeeso Paul oo 28 jir Cristiano Ronaldo oo 36 jir labada naadina waxay qabi karaan labada dhanba faa'iido way qabi karaan Manchester waxay faa'iido ku qabi kartaa inay hesho damaanad qaad in xilli ciyaareedka ugu yaraan 30 gool ciyaaryahan u dhali kara ay hesho mid koobaad waay midda labaad qasaarada labaad ee Manchester ay kala kulmayso waxay tahay mushaarka Cristiano Ronaldo oo 30 milyan aan ka yareen faa'iidada Manchester labaad ee helayso marka qasaarada aan ka soo tagno waxay tahay Paul Pogba hadii oo 12 bilood xilli ciyaareedka ugu dhiman oo dhameysto wuxuu ugu tagay Sifriya kooxda Manchester marka maanta inay 50 milyan ku hesho amba Ronaldo iyo lacag yaris ku bedelato waa Manchester faa'iido ku qabtaa laajli marka hore laga maaraan digin siyaasad xumada Manchester dhanka suuqa ka haysato aw xasaabaysa in ciyaaryahan yani aanan xilliga loo baahnay ana laga saxiixin qandaraas صح markii 2019 2020 markii qandaraas haduu diiday xataa lacag fiican oo 100 milyan ah Manchester u gooy karay lacagta ka soo bixisay laakiin maanta Manchester waxa waaye midida caloosh dhax taalo Paul hadda isku adkayso way ku qasbantahay inay Paul Pogba amba iibiso hadoo heshiiska qandaraaska hadda ku faa'iideyso hadda hadhowga ka jarnaa inta badan laakiin hadda inay Ronaldo ku bedelato waxa waa Manchester danta ugu jirto waxay noqotay inuu free ugu tago iyo inay Ronaldo ku hesho ayadana way kala qurux badan tahay صح marka aan waxa sayahay hadii uu qandaraaska loo soo bandhigo oo 100 milyan heshiis ka caayo ee asiga iyo wakiilkiisa ay diidaan waxaan qabaa in yani waxa la waraawo furq haduu yimaado waraawo farkaleef Soomaalida dhaxdaa hadii maanta Pogba Euro hadoo dhamaado oo diido inuu qandaraas saxiixo waxaan qabaa aragtida ah in lagu bedelo Cristiano Ronaldo amba ciyaaryahan markaas u qalmo oo Manchester wax u taraayo in lagu bedeshaan qabaa markii loo arko Cristiano Ronaldo Manchester United wax weyn uu soo kordhin karaa waayo United ma haysato 9 buux oo ku filan Manchester United waxay faa'iido ku qabtaa in Cristiano Ronaldo la soo saxiixato waxa yeelay Manchester United ma haysato striker oo maanta ama gool dhaliyo lagu tashani karo sidoo kale ma haysato ciyaaryahan oo humuud ah guusha markii laga reebo Bruno Fernandes oo laba xil ciyaareed ka hore uu ku soo biiray kooxda Paul Pogba sidoo kale Manchester United inta badan markay khilaaf uu ka dhaxdhaco kooxda gudaheeda waxa laga dareemaa sida baahinada ay sheegaan qab ciyaarkiisa laga dareemaa maadaama uu soo laabto khilaafkii Manchester United iyo Paul Pogba so Man United faa'iido weyn kuma qabto Cabdiraxiin waa mahadsan tahay mar kale niyo horta markii la dhaho Manchester maxay u baahan tahay guuleyso u baahan tahay guuleyso Cristiano Ronaldo kale inay hesho Manchester aad u anfaca waa hogaamiye waa dhiirigeliye waa guuleyste Manchester waxay damaanad u haysataa in xilli ciyaareed 9 bilood oo xilli ciyaareedka la ciyaarayo Manchester waxay damaanad u haysataa in 30 gool ka badan ay keeli karto Cristiano Ronaldo hadda lagu jiro xilli ciyaareedka soo dhamaaneen xul iyo koox wuxuu leeyahay 44 gool san jeclahay intaas inuu sii maraa umaleen 44 gool xul iyo koox marka inaa hesho ciyaaryahan yani dhali karo 30 gool balaas وفائده كوبتا marka Paul inta yani ku khasaarid oo si bilaash ugu tagi lahay Ronaldo ha iskaga soo badishtaan Ronaldo waa guarantee waa in uu dhalin karo 30 gool waxyaabaha wax oo lagu og yahay amacadiisa ay tahay si fiican waxa la gaaray gabagabadii barnaamijka udu waa ku maasantahay maadaama ay igala qayb qaadatay barnaamijka falanqeynta ee Manchester United Somali Fans isbuucan aad ayaan ka mahadcelin lahaa Cabdiraxiin daawadayaal barnaamijka falanqeynta toddobaadlaha ee Manchester United Somali Fans halkan ayuu ku egyahay tan iyo kulanti dambe waxaan idin rajeynayaa caafimaad